lo ayaa dishay ninkii xaday gobolka Karnataka ee dalka India sida ay qortay jariirada The Star ee dalka Malaysia ka soo baxda. nin u dhashay dalka India ay la yiraahdo Govindaba oo 50 jira ayaa loo ka xaday qof beeraley ah oo xilli aan ka feejignayn oo aan iska filayn in laga gaadayo. markii uu looda la socday masaafo 2 kiiloomitir ayaa waxa uu isku dayay in uu ku riixo gaari uu watay si uu ula baxsado, laakiin si xun ayay u haraantisay dhaawacii ay gaarsiisay ayuuna u dhintay. subaxii maalintii labaad ayaa dadkii deegaanka meedkiisa Govindaba ay ka heleen duleedka tuulada. baaritaankii lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in sababta geeridiisa ay ahayd dhaawaca ay loodu soo gaarsiisay. bilowgii bishii Abriil ee hore ayaa warbixinadu waxay sheegayaan in milkiile beer ka mid ah deegaanada Ingiriiska ee la yiraahdo Gravestava Suri ayaa waxa dhaawacday lo xayraansan, waxaana ka dhashay haweeneydan reer Ingiriis. dhaawac kala duwan oo khatar ah ayaa soo gaaray oo laabta iyo lugaha ka asiibay.